hadda meesha ka dhacay xildhibaano weeye 8daasna waa xildhibaano kursigooda iyo xubinnimadoodu sideeday u jiraysaa haddii ciid khasbayso oo la isula imaanayo waa la khasbay waa baab kale lagama qaadin waa sharci darro cid kaleeto lama soo magacaabi karo hase yeeshee haddii sharciga oo dhan la laalo waxay noqonaysaa dee kalitalisnimo kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegaystayaal halkaad nagala socotaan oo warbaahinta Daljir ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan magaalada Garowe kula yeelanayno xildhibaan Maxamed Ismaaciil Maxamed xildhibaan Siibad oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Puntland Siibad sidoo kale waa aqoon-yahan qoraa ah wuxuuna yahay gudoomiyaha urur siyaasadeedka mustaqbal oo kamid ah ururada siyaasadda Puntland ka jira oo dhawaan gudiga doorashooyinku ay siiyeen shahaadooyinka aqoonsiga ku meel gaarka dabcan ururkaasina wuxuu u ordayaa kamid noqoshada asxaabta badan ee Puntland xildhibaan Siibad ku soo dhawo warbaahinta Daljir oo ku faraxsanahay inaan kugu nimaadno halkan wareysigana kula yeelano bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad awal aad baad mahadsantahay adiga iyo Daljirba ana ku faraxsanahay inaan fursadan siiso hagaag maalmahan dambe waxaa taagnaa hadalhayn tiro badan oo ka jirtay golaha shacabka oo aad kamid tahay 8 xildhibaan ayaa xilka laga qaaday hadalhayn kalena waa jirta arrimahaasi maxay u dhacayaan bismillaahir rahmaanir rahiim waa runta oo way jirtay intii muddo ah wax soo jiitamayay sharciyada iyo arrimaha hadda wax badan u gelimayno ee wax la iska yaqaana waxa hadda filimaya aniga in xil laga qaaday waxa hadda jira si ku meel gaar ah xasaanada looga qaaday waa dambiya lagu eedeeyay marka aan kala qaado horta soo jiitan baa jiray soo jiitankaasna salkiisu wuxuu yahay qaybaha dawladda oo isku milmay oo aad moodo gudiga qaybta fulintu ama waaxda fulinta ee dawladdu inay la wareegtay awoodii oo dhan taa ayaa marka keenaysa inay qaybihii kale waaxyihii kale to shaqadoodii ay mar walba soo faragashato fulintu dad diidan way jireen oo dhahaya hay'aduhu waa kana madax bannaan yihiin haddaan ku iraahdo waxa jira qodobka 58 xubintiisa labaad ee dastuurka markuu kala qaybinayo waxyaha waxa hataa ku jira oo faraya qaybtiisa labaad fulinta waajibaadka iyo xilalka qayb leedahay qayb kale waa ay ka reeban tahay uma soo faragashan karto marka horta halkaas ay ka imanaysaa waxyaabahan buuqan badan hadda waxa dhacay waxa weeye xildhibaano ayaa laga keenay dacwad xildhibaanadaas waa xildhibaano wali hase yeeshee maadaama cod loo qaaday in xasaanada lagala noqdo oo uu soo eedeeyay dee sidaasay temporarily xasaanadii looga qaaday laakiin waa xildhibaanadoodii ilaa maxkamad la geeyo oo sideedaba sharcigu waa laba midna waa dastuurka midna waa xeerka ciqaabta dastuurka afar xaaladood baa laga qaadi karaa oo waa taqaanaa buu qofkii macnaha xubinta ku lumin karaa hase yeeshee haddii dambi culus lagu soo eedayo waxay noqonaysaa dambigaas xasaanada in laga qaado xasaanada macnaheedu wax kale maaha qofka siyaasiga ah waxaa loo diidayaa in loo hanjabi karo la iska xiran karo wixii rabo lagu suubin karo sidaa darteed ayuu leeyahay inaan la xiri karin la baari karin waxyaabaha lagu suubin karin marka awood buu leeyahay xeer ilaaliyuhu anuu ma gelayo hadda eedayntani sax miyaa qalad miyaa sababtoo ah dad baa maciishadoodu gashay looyarada iyo garsoorayaasha maciishadooda halkaa gashay laakiin xaq buu u leeyahay inuu soo eedayo waase inay tahay dembi culus mana aha tii aanu anagu markhaantiga u ahaynoo ka dhacday golaha dhexdiisa arrimahaasi waa arrimo baarlamaanka uu iska leeyahay haddii ayan dhicin dil oo kale iyo dembi culus oo weyn hadduu gudaha ka dhaco dee markaa bannaanba u baxaya laakiin wax saasoo anigu dhacay ma ogeyn ma dhageysatay hadalka xeer ma joogtay horta golaha maalinta maya maalinta ma joogin anigu laakiin waan dhageystay xeer ilaaliyaha xeer ilaaliyaha qodobada uu soo qaatay maba ahayn badankood qodobada xeerka ciqaabta waxay ahaayeen dastuurka awoodaha
golahu uu leeyahay oo qodobka maalan baa 64 baan filayaa articlekaas qodobkiisa 17aad inuu baarlamaanku u yeeri karo marka halka mugdi baa ku jiray arrinkaas arrin cad ma ahayn laakiin waxay isku tagaysaa garsooruhu bahalkii xeeralyo awood buu leeyahay hadeerba dacwadiisa inuu wax ku daro waxna ka reebo awood buu leeyahay marka taasi waxa way xasaanadii baa meesha laga qaaday si ku meel gaara eedda marka xeeralyo soo jeediyay waxay ku qotantay dhacdooyinkii ka dhacay golaha baarlamaanka oo tii hore aad joogtay maalinkii gudoomiyaha baarlamaanku hakinayay si socoshada kala fadhiga saasaan filaya halkaas ay ku eedda wax kale eed ma ku jirta anigu ma arag mana maqal eed kale tuu markii meesha ka akhriyay haddaan waxay dhaafin ma ay jirin maalinkaas marka maxaa ka dhacay baarlamaanka talaadadii aan filayay inuu ku beegnayd baarlamaanka horta sidiisaba in dhoweydba waxa jiray curyaamin fara badan oo aad iyo aad loo tumsanaa midda kale baarlamaanka waxa jira xeer hoosaadkiisuna aad iyo aad uma habaysna xoghayntiisuna tayadii loo baahnaa iyo dadkii midna ma haysato iyo tababarkii loo baahnaa baarlamaanku ma laha hadda 20 maalmood ka hor wixii aan cod loo qaaday inta hadda tagto ma soo heli karto maxay Ismaaciil Maxamed halkaas codkiisu maray ma diiwaan gashana sidaas oo kaleeto goobta marka la fadhiyo sharciga baarlamaanka waxa weeye ilaa quorum wax la dhaho uu fadhiyo 34 ay fadhido business ma qaban karo shaqo ma hawlgeli karo baarlamaanku ma jirto saacad walba inta fadhiday quorumka buuxinaysay ma qorna rekoorkeeda soo heli maysid dad badan marka waxay ka shakisan yihiin in lagu xadgudbay quorumka oo in lagu xadgudbay codka sida loo bixiyo oo la isdhaafiyay sababtoo ah xataa ma jirto xogayaha iyo fulinta waxaan leeyahay hawlwadeennada ayaa qora waxay u gudbiyaan gudoomiyahaasna warqad official ah oo diiwaan gasha oo koobi ka haro ma jirto oo meel loo raacdaa marka halka khilaaf baa ka jira nidaam xun way ka jirtaa waxyaabo loo baahan yahay in la saxo waxaas marka muddo soo socday haddii soo socdeena arintii DB World baa waxa ka dhashay arqalad waxa kale oo jira saxaafadda xageeda waa run taas ana marxaanti ka ah saxaafadda sideedaba inay xor ahaato oo u madax banaanaato oo qofkii doona sideedaba baarlamaanka dadkoo dhan buu u furan yahay waxa way halka hadda wax ka shaqeeyay saxaafad gaar ah saxaafaddu waxay sameynaysaa qofna waa ka jaraysaa gebigiisaba qofna waa la bandhigayaa oo Facebook iyo page iyo buu gelayaa marka waxyaabahaas oo dhan baa maalmahan la tabanayay jiray hadday sida dhacday diidida anigu hadda ma hubo in la yiraahdo soo gelinina laakiin waxaan ka hadlayaa barbaahinta baarlamaanka u shaqeysa waxa weeye meesha ka muuqanayso doodaha dhacay iyo qaabkii iyo wixii ay soo gasho ma dhacdo marka cabashooyinkii jiray oo la tuhumsanaa si kastaba ha ahaatee hawlahaas oo dhan baa soo socday caburinna way jirtay runtii baarlamaanku wuxuu leeyahay xeer hoosaad sharciyu leeyahay midalan markaan ka soo qaado sabtideena soo dhaaftay qodobkii la soo hormariyay ajandaha ahaa ee meesha oola dee waa marxaanti ma doonto waad ogeyd waxa ka dhacay taas marka maxay keentay in la yiraahdo hadda meeshu see u shaqaynaysaa maalintaas buuqa jirena ma ahayn wax gacanka hadal iyo wax kaleeto iyo dhib kale oo dhacday ma jirin buuq baa dhacay is-afgaranwaa baa dhacay gudoomiyuhuna markii dambe inkastoo markii hore ka dhiga adeegay uu ku guulaystay inuu soo xiro xeerkaana uu ogolaanaya xeer hoosaadka haddii buuq u dhaco inuu xiri karo muddo 24 saaca uu xiray waxaan halkaasay marka ku leeyihiin cabashooyinka badan waxyaabo sideedaba hadday waani kala hadlaya qaybaha dawladda baarlamaanka shaqadiisu waxa weeye xukuumadda inuu la xisaabtamo marka aan cadayna positionka xildhibaan Siibad iyo xildhibaanada ku ra'yiga waxaad leedahay arinta dhacday maalinkaas buuq baarlamaanka ka dhacay gudoomiyaha soo xiray iyo eed xeerlaanta isma waafaqsana ogaalkayga maya shaqo isku ma laha ma ahayn xeer ilaalin inay soo faragashato haba yaraatee xeer ilaalintu waxay soo faragashan kartaa dambi culus haddii xildhibaan lagu eedayo dil buu geystay waxyaabo kale oo dunuub waaweyn uu geystay markaasay u iskeeni kartaa anigu waxaan ka tirsanahay guddiga shuruucda iyo cadaaladda
cidda ugu horeysa ay u imaan lahayd xirilaaliyaha dacwadiisu gudoomiyaha dabcan xogayaha qabanaya gudoomiyaha go'aan ka gaaraya annaga inuu noo soo gudbiyay ahayd waana anagu eegno sharciyada iyo waxa ay tahay markaana tala siino baarlamaanka ma dhicin mana aanan arkin ma garatay marka wax hadda lagu eedayo oo xilaalin ay keento aan ogahay maalinta ma jirin haba yaraatee laakiin waa iscaburis baa jira hadda ka horna waxa jirtay mooshinno iyo waxyaabo caynkaas oo socday marka tiiba waxa loo adeegsanayaa mid kale oo nasiib darrada ah baa waxay tahay waad ogtahay Hargeysa waad ogtahay Xamar dadku waa hadlaan saxaafadda waa hadashaa baarlamaanku waa hadlaa Puntland xukuumadeeda iyo dawladeedu waxan baas ay qariso waxa moodaa gabar maxjabada wajiga qarinaysa maxay tahay wixii waa in la furaa waa inay banaan yaalaan waa in laga doodaa si ciladu sixi kartaa hadaanba laga hadlin waxaad bilowgii hadalkaaga waxaad ku soo bilowday isku milan ka dhashay hay'adda fulinta iyo tii sharci dejinta dhexdooda ayaa dhibaatadan sal u ah waxaa la yiri marka laga tago maxaa cadeyn oo haysa isku milankaas ka xildhibaan baa tahay golaha shacabka waa maxay qodobada aad hadda sheegi karto in faragelin ay xukuumadda mar walba baarlamaanka ku hayso maalintii u dambeysay waxaan filayaa inaad dhageysatay gudoomiyaha baarlamaanka mudane Cabdirashiid uu yiri iyadoo ajenda noo yaal uu yiri codsi ayaa jira oo noo yimid baarlamaanka shaqadiisu maxay ahayd heshiisyadii la galay xukuumaddu waxay qabanayso miisaaniyadii la ansixiyay shaqadii ma socotaa ma fuliyeen ma sameeyeen madaxweynaha anagu muwaadiniin baanu nahay madaxweynuhu xaq buu u leeyahay baarlamaanka taluu ku leeyahay wuu soo diri karaa qoraal waxbuu ka codsan karaa war gacantii baa dhudhubina ka gashay hadduu yiraahdo sidaa iyo sidaasaana haysata yaa oranaya waqti hala siiyo inta dhudhubta gacanta nooga baxayso ma fahamtay nin diidaya ma jiro laakiin ma dhicin marka faragelinta waxa ku cadeynaya waxyaabo aan meesha shaqadii aan anagu gudan lahayn hor istaagay ayaa keenaysa waa hagaag arrimahani maxay ku dambeyn karaan xagee ku biirshubanayaan baarlamaankii hadda ka hor gudoomiyaha ayaa la riday dhoobadaareed dhiig baa ku daatay maalinkii dhaweydna 8 xildhibaan baa xasaanada laga qaaday dabcan muddo gelin ayaa magaaladu xirnayd oo ciidamo dheeraad baarlamaanka tagay arrimahan oo dhan waxaad moodaa in mar walba xaaladdu serious ay tagayso wadankiina labadii sano u dambeysay waxaa soo badanaya qalalaasaha dhanka siyaasadda ah iyo khilaafaadka ku salaysan oo mararka qaar in amnigu khalkhal gala keenta maxay wadanka hadda xagee loo socdaa Puntland xagee u socotaa hadda sideedaba waxaa jira oraah ah haddaynan jihada bedelin meesha aynu u soconaynu tagaynaa Puntland haddaynan jihada bedelin meesha u socotaa waa jar waxaana keenaya iscaburiska jajuubka waxa keenaya in hay'adihii iyo isla xisaabtami karin hase yeeshee waa laga gudbi karaa haddii miirku inoo soo noqdo oo inuu niraahno waxbayna ka dhaxaya war aqalkan aan ku wada noolnahay aqalkan aan hufano see loo hufan karaa saddexdii waaxid iyagoo mid walba shaqayso iyadoo laga baxo nimankan la yiraahdo isimada iyo beelaha kan waxaan lagu qaybsanayo dadkii ay xornimo helaan ay wax doonaan ku doortaan qofkina ay la xisaabtamaan hadhow ay bedeli karaan laakiin isjajuub iyo hadduu socdo anaa iriyo loo noqon maayo rukun wada socon karo sideedaba adduunka oo dhan bay jirtaa arkay oo anaa iska leh iri oo loo noqon maayo ma lagu wada socon karo Puntland nimca lagu jiraa waa fiicannahay horumar baan sameynay waa soo jirnay hase yeeshee meeshii loo baahnaa ma joogno in la xisaabtamo waa laga maarmaan in madaxweynihii la qabsan karo la oran karo waxbuu qalday wasiirka la qabsan karo waxyaabaha dhibaatooyinka aan dareemo waxa kamid ah intaan halka arkayay qofka wasiirka ah marka xil loo dhaariyo madaxweynuhu awood buu leeyahay wuu origi karaa laakiin madaxweynuhu waxaan waafaqsanayn xeerkii ma oran karo samay shaqadiisana isaga iska leh ma fahamtay waxa moodaa marka wasiirkiiba inuu yahay qof aan muqtar ahayn oo shaqadiisii u madax banaanayn sidaas marka qaladaadka badan waa se laga gudbi karaa hadii la wada shaqeeyo waxaa jiray urur siyaasadeed oo adigu mid kamid ah gudoomiye ka tahay ilaa hadda arrimahan ka dhacay baarlamaanka kama hadlin urur siyaasadeed ka hadlay lama hayo ururadii maxaa aamusiyay horta ururada kale aanu magacooda uma hadli karo anaga mustaqbal ahaan waxaanu ku jirnay waxaan doonaynay consensus in laga hadlo horta maxaa qaldan maxaa laga hadli karaa wayna socotaa kulamaan noo socda
waxaana fiican urur walba isagu iska hadli karaa ama madax bannaan yahay laakiin waxaan waa wadankana waxa weeye in loo turo wixii qaldanna toojka lagu qabto runtii ilaa si kale looma sixi karo iyadoo ayaan ahayn ujeedadu annagaa is-curyaaminayna marka weli ma garanayo laakiin waan baa noo socota waan kulmaynaa go'aanaanu ka soo saari doonaa haddii rabbi idmo waayahay kadib arrintan xildhibaanadii way hadleen sideed ahaa oo xilka la sheegay in laga xayoobiyey guddoonkiina waa kii sheegay inay shacabka ka mid yihiin iyagina waxay leeyihin weli xubinnimadii ma aanaan lumin ma jirtaa meel kale oo loo laaban karo oo arrintan lagu soo dhexgeli karo fiiri sharcigu waa waxaa qoran warqadaasuu ku qoran yahay qofka rabaa isagoo iska indhatiri karaa laakiin waxa hadda meesha ka dhacay xildhibaano weeye 8daas nin waa xildhibaano kursigooda iyo xubinnimadoodu sideeday u jiraysaa dee haddii ciid khasbayso oo laysula imaanayo waa la khasbay waa baab kale lagama qaadin waa sharci darro cid kaleeto lama soo magacaabi karo hase yeeshee haddii sharciga oo dhan la laalo waxay noqonaysaa dee kalitalisnimo wixii la yeelo dadka qaarkiisna waxaa moodaa inay ku faraxsan yihiin qur-aanka waa atu'minuuna bibacdin watakfuruuna bibacdin waxa dadku ku heshiiyo xeerarka ah kaafatan waa inaa u qaadataa waa in constitutionka oo dhan waa dhigan yahay heshiis baa lagu galay maaha wax la bedeli karo wixii meeshaas mid waaniga ku yidhi haddaaye hadda say tahay xasaanadii sidaan maqlay oo codkii meesha ka dhacay waa lagala noqday si ku meel gaara nidaamkaasay marayaan maxkamad bay gelayaan inkastoo shaki uu ku jiro puntland ma laga heli karaa maxkamad tayo u leh oo madax bannaan inay nimankaa ku qaado waxyaabaha lagu eedaynayo hooy madax bannaani go'aan uga gaarto caalamka way ka dhacdaa gobollada maalan ama magaalooyin ayaa qof eed lagu eedaynayo ay suuqa gashay oo lays yidhaahdaa qofkaas cadaalad ma heli karo meel kalea la geeyaa innagu marka xagee geynaynaa wey tusaalahaan maxkamadda sare ayaa arrimahan oo kale wixii dawliga ikhtisaas u leh inay qaado kiisaskeeda maxkamadda sare hadday xukunto oo dembigaas in lagu helay dib u eegistan isla iyada iskale haddii marka xildhibaanadaas saad walaac aad muujinaysa ay keenaan marka xukun kadib hadduu dhaco wax dhacay maaha laakiin waa lacala waxaan hadda ka hadlayno xaggee u bannaan inay aadaan dembi culus hadduu ku dhaco oo xarig ah weeye waa inuu xarig yahay markaa kabacdi baa laga hadlayaa xubinnimadiisii laakiin inta ka horeysa waa xubin baarlamaan weeye waxaad walaac ka muujisay badan xorriyadda baarlamaanka dhexdiisa madax bannaanidiisa arrimahaasoo dhan baad ka muujisay waxaad sidoo kale hadalkaa ku jirtay qofkii hadlaba in uu la beegsanayo adiga haddeerto si xornimo badan ka muuqataad u hadlaysa waraysiga intaan ku guda jirnay cabsida aan kaa muuqanin sida xornimada aad u hadlayso haddana aad muujinaysa dad badan baa isweydiinaya sidaan u hadlayo iyo xorriyad qowl ma jiro ama waa la iscaburinaya si ay isu waafaqayaan waxaan ka hadlayay shaqada baarlamaanka ka socota nidaamkii loo dejiyey oo dastuuriga ahaa inay u socoto ayaa la isdhaafinayaa waxbaa la kala bedelayaa midda ah anigu waxaan u joognaa baarlamaanka inaanu wax ka saxno puntland waa gurigayagii waxayna haysataa fursad qaaliya waxay leedahay waxay af ingiriiska potential ku yiraahdaan awood ay ku kori karto ku kici karto ka qayb qaadashadeedaan u joognaa sideedaba waxaa jira haddii magoolka meesha ay ka dhammaadaan maxaa ku haraya ma waxaraa haraya waxaa la yidhi riyaha iyo waxaruhu xeray ku wada jiraan laakiin waxaraha qoolkaa u dheer lagama dhammaan karo waa in mar walba la saxaa haddeerba waxyaabo badanoo aan waagii hore baarlamaanku lagu riyoon jirin ayaa hadda la sameeyaa oo waaba taad arkaysaaba in laga hadlayo laleeyahay waxbaa qaldanoo waxbaa jiro waa waxaasi waa waxyaabaha horumarka ah oo imanaya marka ma jirto qof xildhibaana qof afka qabtay oo yidhi ma hadli karto laakiin golaha dhexdiisii xornimadii iyo saxaafaddii iyo wixii ayaa moodaa inuu ka jiro horjoog celi hoji ma garatay marka halkaa way meeshay ka imanaysaa adiga hadalladadan iyo aragtidadan hadda aad dhibanayso
haddiiba aad leedahay saaxiibadeedii hore waddo khaldan waddo aan sax ahayn baa loo maray in waddadii ay mareen lagu mariya kama cabsanaysid saaxiibow ilaahayna kuma keeno in la yiraahdo golaha muxuu ahaa wakiilada ee Puntland aayadda quraanka ay waxay ahayd alaysa lakum maxay alaysa minkum rijaal bay ahayd saxa magtahay in la yiraahdo war meeshaba dad wax oran kara waxba qalada ama waxba kan waa sax kanuna waa qalad ama ba laga waaya ilaahay naguma keeno way dhici kartaa wax sheegaysaa ragga hadda qaabkan intay isu abaabuleen go'aanka ka gaaray inay xildhibaano aan dambi gelin sida u eedeeyaan oo saa u sameeyaan inta wax ka darana suurtagal bay ka tahay inay ku kacaan xataa si xildhibaanada loo aamusiyo hase yeeshee waa la hadlayaa waa soconaysaa waxaan rajaynaynaa in dadku waantoobo oo ay faragelin ka timaado hay'adaha dawladdu haddii hay'ad isqabato hay'adaha kale way dhexdhexaad bay ka geli karaan in la isugu yimaado oo xildhibaanadaas waa xildhibaano wixii boob ku yimaada waa gaar waa xildhibaano shaqadooda gudan karaan way fariisan karaan wax ka qaadi kara male cabdiqani jaamac surato yuu yahay ninka ka nadiifsan shaqadiisa kaga fiican guddiga cadaaladda hogaamiyihiisa weeye ma garatay waa maxay ninka nadiifka wuxuu sameeyo galay wax qaldan ayuu hor istaagay oo yiri war sax maaha waynta marka waa soconaysaa halganku madamiyo way ugu dambeyn taladaada nin oo aqoon-yahan tahay wax badan adduunka sidii u shaqeeyo baarlamaanadiisana dabcan waad ka warhaysaa qoraal waxbaad ka qortaa arrimaha Puntland iyo Soomaaliya talada maanta aad isleedahay laga gunto oo shacabka iyo cidii kasta ay khusayso maxay noqonaysaa waa laba arrimood mid shacabka horta ku socotaa sideedaba waxa jira qofka dawladda daamaqasho dawladdu dad bay ka samaysan tahay dadkuna haddayan laba midkood aysan kaa celin haddayan ku adoonsan lafahaagay dhuuxayaan midi waa caqaab adduun inay ka baqayaan oo adduunka ama shantu inay hor istaagto ama sharci hor istaago midda labaadna waxa weeye inay aakhira ka baqayaan isliin waa lagu xisaabtamayaa haddii marka qofka ibn aadamka uusan labada midna ka baqin oo ay kaa celin duu kugu tubanaya shacabka iyaga ka mas'uula xeerarka dalka iyo hoggaanka inay la xisaabtamaan oo arkaan taas waa mid aan kula talinayo shacabka maxaad markaa dhihi lahayd macnaha waa inay ka qayb qaataan oo wixii xaaraana joojiyaan way ka hadli karaan way ka mudaahiraadi karaan xukuumadda influence kala jiro oo lagu yeelan karo oo saameeyna hay'adaha wasiirada lala hadlo la dhaho sharciga hal la ilaaliyo nidaamka hal la ilaaliyo sidaasaynu u dhaqanaa marka xigmaddu waxay tahay inaan marna la ogolaan shakhsiyaad inay wax doonaan iska sameeyaan waa qodob shacabku horta ma yaqaanin xeerarka waddanka ma ka warhayaan iyagu shacab badan oo soo jeedaa jira waa run in hurudaa jirta inta huruda xataa in toosiye u baahan tahay laakiin shacabku waa garan karaan way iska jirtaa shacabku inayan weli gaarin heeray xuquuqdooda oo qof la leeyahay maalan ba adigu reer hebel baa tahay waxa ha gelin waxa ka bax isagoo aan hooy haysan isaga oo aan daryeel caafimaad haysan isaga oo aan maaragtay xuquuqdiisii ay dhamaystirnayn maalan ba waxyaabo badan oo dhacaya way jirtaa laakiin shacabka wacyigelinta socodka way ku haboontahay laakiin iyagu waa inay gartaan xukuumadda haddayan ku caawin waa Umar bin Khattab yiri war haddaan qaldamana ay caawina haddaan saxaana ay caawina war haddaan qaldanto see ku caawina siro war qaladka ii sheega qabta waa xigmaddu waa intaa midda labaad waxa weeye sideedaba madaxweynuhu waa hay'adda dalka ugu sarreysa waxa weeye isaga ayaa nabadda iyo difaaca iyo midnimada dalka shaqadiisa ay tahay anigu qof ahaan waxaan ka codsanayaa inuu soo faragashado dhalinyaradan hawlaha iska wadata anigu ma garanayo in isaga ka imanayso iyo madaxtooyada iyo waxa jira hadda ka hor Harry S. Truman madaxweyne la oran jiray oo xilligii 45tii dagaalkii labaad dhamaadkiisa Mareykanka ahaa markii la dhaariyay ayaa nin baadariye oo ay isku kaniisad ku cibaadeysan jireen ayaa u yimid oo saaxiib ahaayeen markaasuu yiri wariyaha Harry wuxuu yiri Harry aniga iyo adiguba waa ognahay
inaadan may wuxuu yidhi waxay ahayd waxa isku kaa xeeri doona kuwa ku oran doona nin khatara tahay laakiin aniga iyo adiguba waa ognahay inaadan khatar ahayn marka ka fiirso cidda dhageysato ma fahamtay waa muhiim madaxweynuhu waa inuu soo baxaa waa inuu shacabka la tashtaa waa inuu war ka qaadaa marar badan uu u soo baxay oo la sheekeeyay baa jira oo xaaladda soo faragashada hadda xildhibaanada tan oo la yiraahdo saasay ku abaadayaan oo laga hor istaago meeshooda si kala durug maahay wax kale ma keenayso waa jarka aan ku sheegay marka jarka waa inaan ka weecinaa waa inta saasan ku talinaya insha Allah aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xildhibaan maxamed ismaaciil maxamed xildhibaan sibad oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Puntland waa aqoon-yahan qoraa ah oo dhinacyo kala duwan wax ka qora sidoo kalena waa gudoomiyaha urur siyaasadeedka mustaqbal oo ka dhisan Puntland aad baad mahadsantahay xildhibaan kada mahad celinayna waqtiga